Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan aqyaad youtube baan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay sidaan ula soo duki lahayn screen recording pro kaasoo naga caawinayo inaan screenka mobilkan aan ku duubna ee androonkeena marka aan ku tuso marka sidaa ula soo degta mobilkan ayaad furaysaa kadibna waxaan isticmaalaynaa in Avatod Play Store-ka ahaan ayaan u isticmaalaynaa ee casharkaas hore la soco kadibna marka kuu soo baxo waxaad ku qoraysaa SCR kadibna waxaad ku qoraysaa PRO oo Pro ah kadibna inta ayaa leedahay laba version ayuu kuu soo saaraya version waa mid hore kan hore aan isticmaalaya laakiin number 2 ayaa isticmaalaysa ku qoran tahay oo ah 2016 soo baxay 6 bilood ka hore ayuu soo baxay kadib markaad ku dhufatid install ayaad ku soo baxaysaa installka ayaad ku dhufanaysaa kadibna downloadka ayaad ku dhamaynayaa marka hore kadib markuu downloadku dhameeyo waan ka soo baxaynaa dhammaan kor ayaan ka soo dejinaa screenkeena si aan u ogaano inuu downloadka noo dhameeyey kadib markuu downloadka noo dhameeyo waxaan u baahnaa inaan furno kadib markaan ku dhufano si uu noogu furmo barnaamijka aan installation u sameyno kadib waxaa leedahay install ayaa leedahay sida screenka ugu shubo barnaamijkan wuxuu kaa caawinayaa inuu screenka kan hadda ku duubayo oo kale waaye wixii ku kala duwan yihiin malan marka waxaa leedahay kii hore ayaa ku jira saasay tahay labadaba wuu ku shubay okay dan ayaa leedahay midna waa kana midna kor ayuu ku jiraa qaybta soo jeeda safka koowaad kanna waa safka ugu hooseeya ku jira labadaba wuu ku shubay insha Allah bina geesa u soo upgrade lahayd ku tusaa laakiin barnaamijka wuxuu ka mid yahay barnaamij free ma ahan laakiin waa muhiim in uu mobilkaaga root leeyahay fadlan mobilkaaga waa inuu root leeyahay sidaa darteed hadduu root lahayn kuma shaqeynayo casharada rootka dib ula soco ee videogaaga descriptionka ayaad kala socon kartaa dhammaantood iyo abatodka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh jazaakum allahu khayran